weerar dhinaca cirka ah oo militariga Israa'iil ay ku qaadeen xero ay ku jiraan Falastiiniyiin barakac ah oo ku taala koonfurta dalka Lubnaan ayaa lagu soo waramayaa inay ku dileen ugu yaraan 13 qof oo shacab ah halka tiro kalena lagu dhaawacay. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale duqeymo kala duwan waxay ka fuliyeen qaybo ka mid ah koonfurta Gaza gaar ahaan Rafah iyo Khan Yunis. waxay sidoo kale toogteen ilmo yar iyo wariye ka tirsan warbaahinta Al Jazeera oo ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto, kuwaas oo dhaawacyo ay soo gaareen. hal qof oo kale ayaa ku dhintay, 3 kalena way ku dhaawacmeen weerar ismidaamin ah oo baabuur iyo mindi loo adeegsaday oo ka dhacay daanta galbeed Talaadadii. dagaalka xasuuqa ah ee Israa'iil ay ka wada Gaza waxaa lagu dilay ugu yaraan 69,483 Falastiiniyiin ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 170,760 iyo bishii Oktoobar sanadkii 2023. dhanka kale, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa kordhisay mamnuucidda ka ganacsiga macdanta 38 goobood oo macdan qodis ah oo ku yaala gobolada waqooyiga iyo koonfurta Kivu ee ay colaaduhu ka jiraan. saraakiishu waxay sheegeen inay heleen cadeymo muujinaya in dhaqaalaha ka soo baxa macdantan sharci darrada ah lagu maalgeliyo kooxaha hubeysan ee gobolka, taas oo qasab ka dhigtay in la dheereeyo muddada mamnuucidda. wasaaradda macdanta Kongo ayaa sheegtay in 6 bilood aan la ogolaan doonin in aagaasi macdan laga qodo, iyadoo sidoo kalena la kordhiyey cadaadiska u hogaamsamka sharcigan. go-aankan ayaa sii dheereynaya xanibaadii horey loo soo rogay bishii Febraayo ee bilowgii sanadkan. waxaa sidoo kale socda tallaabooyin ay dowladdu ku xaqiijinayso in iibsiga macdanta uu xor ka yahay maalgelinta isku dhacyada gobolka. dhulka qaniga ku ah macdanta ee bariga Kongo ayaa waxaa isku haysta kooxo maleeshiyaad ah oo ay ku jiraan fallaagada M23 oo bilihii lasoo dhaafay ballaarisay gacan ku haynteeda goobaha istiraatiijiga ah.